askari ku labisan dareeska ciidanka dowladda ayaa wuxuu maanta magaalada Muqdisho ku dilay darawal kaxeynaya mooto bajaaj. Dilka ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa isgoosyada dabka iyo bakaaraha. Askariga ayaa la sheegay inuu rasaas uu ku furay marxuum Faarax Cabdullaahi, halkaasna uu iskaga baxsaday askarigii dilkaasi geystay. Marxuumka meedkiisa ayaa loo soo qaaday isbitaalka Madiina, waxaana halkaasi iskugu yimid marxuumka ehelkiisa. halkan waxaa iskugu yimid ehelada marxuum Cabdullaahi Faarax, Allah u naxariistay, oo maanta la sheegay in askari ka tirsan ciidanka dowladda uu ku dilay agagaarka isgooska dabka ee magaalada Muqdisho. guud ahaan ehelada waxay dalbadeen in cadaaladda la hor keeno askarigii dilkaasi u geystay marxuumka. أنا عبد الله يا ويلك فرح مهذا أنا دلي عسكري تورسيسان يا وحكو دلي مالها الولاية أكثر وحاله وحكو دلي وصلنا قرر منه وحال مقالي وضلوا إساس ولا فين بيجر بساود ولي حفظوا خليه يمد وجهه خلاه وحان كعصنا يا دولده وحان كعصنا يا لابها أمانك إلى هذا الشرعية إنه وافجان أنا ودردان حسنا الله لينك دلي إن سيدة دجال وسقفته يعني دردك عصنا halka waxaan isugu nimid murug iyo muxuu ahaay dhibaato ku dhacday ummadan meesha isugu timid ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka meesha isugu yimid saaka markay ahay 8 iyo bar ilaa 9 ayaa marxuum Faarax Sheekh Cabdullaahi Sarhaye ayaa waxaa lagu dilay muxuu ahaay xaafadda Howlwadaag waxaana dilay ciidamada qalabka sida gaar ahaan waxaa dilay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliyeed isaga oo bajaaj wata oo ku shaqaysanaya taqriiban 6 bilood buu bajaajka ku shaqaysanayay markaas waxaa lagu dilay si ciyaar oo ayaa lagu dilay halkan waxaanu rabnaa inaanu ka jeedino baaq dawladda federaalka ku socda waxa hay'adaha amniga wasaaradda amniga taliyaha booliska خاصة تليها بوليسك كسعت حير ألالين تقرك كسعت وحان أباهن هاي رجاس بوليسك الدلين نكاسو لما تشك بوينت لحظة بيكون دلين ما دعي كرتو تشك بوينت أقول حية ما أنت عيدا لما نينو أسكره قري وتا إنني أوجين عيدا كاس وأوجين وحان عطسنا إنها ووزارتها أمنية عدالة بوليسك labada waan ka codsanaynaa iyo xeer ilaalinta qaranka maxkamadda qaranka inta baan ka codsanaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka inay sida u dhaqsaha badan hawsha wax ooga qabtaan. Maxamed Cabdinaasir ayaan leh Universal TV Muqdisho.